السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما أنت واحد جلستين halkan qiyar nagu isku biyo qisadaas oo ani aad ii taabatay qisada waxa ku bilaabatay niman dhalinyaro ah oo meel iska jooga galab oo banooni ka yimaaday ayay wax arkeen saaxiibkooda oo sawir soo galaya meel yiraahdo Turkiga jooga yar kamida oo qisada ay ku socoto ayaa hooyadiisu tagay oo ku yiraahday hooyo macantina baxar raba dibadda aad wax soo barto maamada horte hadalkaas ku soo dhaweysay laakiin aabbo oo ninka oo way araga ilaa nooc wujud aabbaha iskala Soomaa markee adigii waa loo sheegay kale aduu anfiic way kharash ma hayo adigu wax ma qabto maamadu meel bay hilib ku qashaa marka wallahi wakaas maamadu waa iska fikirtay hooyo ilaa kharashiyo waa iska fikirtay waxay go'aan ku qaatay inay wiilka dirto wiilka markay qorshe ashagu ku socday markaas caadi bay ahayd oo wuxuu rabay inuu Turkiga tago wax ka bartay lacag 5 kun aduu meelahaas loo soo diintay maamadana way ka baqaysay inay tahriibo adigu waa uu diidanaa macna inuu ka tahriiba maamada laakiin waa hooyo iska qalbi jilicsan tahay wax iska tireen tahriibayo cunugiga saas way meeshu tagaa آخر هذا قدام بيتي عنقي ولا شو دينتي لعقتي العكش كنا شو دينتي استحكون لبك استحكون يشم بقول ما استحكون حكوا بحد في سي وحاس شم بقولنا هذا تك ديو وحكوا بحد هم لنا كنت مش هذا على كل حال تركو تجي كنا شم بقول شو تركو تجي وجحد الصورة قريب أيو ميل أو كورن يرى ميس كبرتين كورن يرى أيو هرسني جوان ميسا إني بحين رما خرج الشغل كتهربي وحاسق ليا ويل كان هويا صادر شتي هويا كوسو ترى تعب شيء لا تنيو صدح عشان لا تن أفرتني شكر نسي مركا أثناء كل شباب وتعدل كان لو كوني هرس بالفريق سما وحالي نيو كوني شنبغل باجتا ساسميني هو كتهريب مقال كاقل قدرت تركو حبرتو له مجوغو كتهريب قري قال كبعك سيتي maamadii hooyo umu sheegin maamadii way wacdaa seetay hooyo xaaladda adigu hal mar laga yaabo inuu ama loo mar laga yaabo inuu laakiin maamada habeenkii way wacdaa adigu labadii maalin saddex mar ay wacdaa adii ama labadii maalin adigu hal habeen meelaas kala wacdaa wiilkii la qurbu jira hooyo islaali hooyo saas way diinta ku dadaan saan samee marka hooyo kaay ninku waa in iska dhalinyarada waa taqaan hadafii hami baa qaaday hooyadii hooyo masaakiin iska ahayd afartan xataa ku soo saartay isku waxay ka sixan weeyday wiil dariskeeda oo ku dhaxay wiilka Faaduma waxay ka sixan wiilka waxay ka baqday in ma isku joogto laakiin qadarta saddex birki bacay la helay doon rugmati oo dad Soomaali iyo kuwa Shiireen ay saarnaayeen Soomaa markee wiilkii waa loo sheegay wiilkaaga hebelkii sawirkaas Soomaa in soo noocaas ma aha على كل حال wiilka u jeestay waa soo magarad markee waa ogtahay dhalinyarada sanadkan iska jirtaan يعني wax kooda dhalinyarahan qofka la saaxiibsid qofka marka hore uu xiyaal fiiriya wiilkaas aqli ahaan macnii nin iska dhameystirno ahaa nin gobolka soo koro nin gobolka soo koro waxa fiican waxa uu kala yaqaan Soomaa hadan weyn oo maanta oo dhika waa nin khaldima nin weyn oo ahaa oo jiro Soomaa laakiin waxa kale saameerta gaarsiga waa badweynta ku riday وأنا من رد صاحبي سوا مش كبرتنا كل شيء هذا أم كل جالس كنا قف دور إلا باتشن شكرنا وهذا حماية هل شكرنا كل شيء بالكور تبدأ شكرا سوا حتى أنت المعاملة الشيء أو العاد كيف حسين أو هذا اللي تبدأ شتى ليش فرح لا وشكرنا بالكاسة وشكرنا بحسين لا أي واحد لوش جريز لله كل شيء qof aad darsatay oo aad darsatay noloshaada bedelo waxdana wish geelis wallahi waxa xun way xanuunka ay hooyo dareentana ma jiro qof dareemi karo Soomaa markee waa iska dhalinyaro laakiin dhalinyarada wax kula talin lahaa
in ay hadaf leeyihiin oo ay gartaan mowqifkooda waxaan muxuu yihiin fiican yihiin horta waxa la yiraahdaa ninka dhalinyarada intuu geed ka bado uu tala ka booda Soomaa horaan loo yiri 20 jirka ilaa 60 jirka waxa la geeri kan baqaan waayo 60 jirku inuu adduun soo la qorsho yahay ilaa 60 jirkan adduunku wax wuxuu yahay ma yaqaano Soomaa marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa inay qofkii la saaxiibay ogaadaan siba dhalinyarada dibadda jirta ama dibadda hadda aadaysa ha ogaadaan mowqifka ay dibadda ugu soo tageen intee kiiloomitir soo jareen Soomaa maxaa qarad ku soo baxay see lacagta loo keenay hooyada cunugeeda u soo deemitay after waxa laga yaabaa 10 waxa laga yaabaa in 3 sano 4 sano lagu laga yaabaa waxaan tiima lahayn adigu waa iska wuxuu iska ahaa dadka xamaaliga iska xamaalo iska Soomaa aduu macnaheedu in rag taqaan haduu ninku ka dhintana uu ka sameeyay laakiin samarka hooyo ka samarto wiilkeeda ka dhintay oo haddana xataa in aasan karin aas la hawla wala quwwata illa billah wallahi xanuun ka weyn wallahi ma jiro Soomaa marka insha Allah waxaan ugu talaa dhalinyarada siba ku qurbo joogta hadda macna aadis oo noqon kuwa horta noqday caafi ilaahay meeshu geeniyo isaga Soomaa laakiin dhalinyarada kala hadda joogta war wax barasho lagu diray 20 sano lagu soo turtaa bilay lagu soo kornay waxa doontid waxa rabtid lagu siinay Soomaa marka insha Allah adigana hooyada dhibin go'aan kasta aqaanayso waxa laga dhashay hata hooysan way waalidteeda laakiin meesha hata laga dhashay hata way kugu shidsanayso qof Soomaa laakiin hadda